بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal su'aalahan ma isweydiisay horta qofka mu'minka dhinta ruuxdiisu xagee aadaa waa talabaade ruuxda qof dhintay oo mu'min ah ma la kulmi karaa qof kale oo nool talaaqi arwaax laba ruuxood oo midna nool yahay midna ay geeriyootay ma wada kulmi karaan su'aalahaasaynu ka jawaabi doonaa waxaynu ka warramaynaa waa qofka mu'minka ah dabcan ruuxa gaalka ah isaga de hooyadii haawiyo ku jira fa ummuhu haawiya hooyadii waa haawiyo cadaabul qabri iyo meel buu ku gaar yahay laakiin ruuxa mu'minka ah subxaanallah iyo arwaaxdoodu iyagu way kulmaan kuwii dhintay ee geeriyooday iyagu way kulmaan sidii mu'miniintu ay ugu kulmi jireen adduunyada markay joogaanba ay masaajidka isugu iman jireen xafladaha isugu iman jireen oo janaasooyinka ay isugu iman jireen oo alla baryada ay isugu iman jireen subxaanallah iyagu markaa way kulmaan oo waxay ku guda jiraan meel beera ah oo nicmaysan oo ilaahay uu og yahay subxaanahu wa tacaala oo caalamil barzakha caalamka barzakha loo yaqaano ayay ku kulmaan laakiin dad nool qof nool ruuxdiisii iyo qof dhintay ma kulmi karaan bal ila wadaaga qisooyinkan wuxuu imaam ibn qayyim rahimahullahu kitaabkiisa kitaabu ruux ku soo saaray qiso cajiiba qiso aad iyo aad u cajiib laba saxaabi baa jiray oo mid waxa la odhan jiray sacab ibn juthama mid kalena waxa la dhihi jiray cawf ibn malik radiyallahu anhuma laba saxaabi bay ahaayeen midna muhaajir buu ahaa midna wuxuu ahaa reer ansaareed marka way walaaloobeenoo nebigu waa kii ansaar iyo muhaajiriinta walaalaysiiyey marka dar ilaahay bay walaaloobeen kadibna waxay ku ballameen waxay dhaheen walaal haddii aad adigu iga hor dhimatid maalinta aad dhimatid aad geeriyootid habeenkaas riyo iigu kaalay oo ila kulan kii kale wuxuu dhi suurtagal ma tahay wuxuu dhahay haa suurtagal weeye ballantii bay kala qaateen waxay dhaheen labadeena keena hor geeriyoodaa waa inuu u yimaadaa oo riyo uu ugu yimaadaa markaa walaalkiisa kale subxaanallah ninkii sacab ibnu juthama la odhan jiray ayaa geeriyooday raximahullah allah u naxariisto waradiya canhu allahna raalliha ka ahaa markuu geeriyooday walaalkii cawf ibnu malik ayaa muddo sugayey subxaanallah habeenkii koowaad ha sugo walaalkii buu sugayey oo riyo ku sugayey oo xuslahaa habeenkii koowaad buu ku imanaya wuu iman waayey muddo bil laba saddex ilaa sanad meelaha ku dhowaad markii uu maqnaa ayuu markaa uu arkay habeenkii dambe riyo ku arkay marka laba qofood ee muddo kala baahsanaa subxaanallah siday u kulmaan oo kale ayay u kulmeen marka wuxuu dhahay walaal maxaa kugu dhacay miyaynaan ku ballansanayn inaad habeenka koowaad ba adii timaadid kolkaa wuxuu yidhi arwaaxdayadu waa gacanta ilaahay bay ku jirtaa iyo waa amar ilaaho markuu alla doono subxaanahu wa tacaala ayuu sii daayaa oo u ogolaado dabadeedna wuxuu arkay halkaa qoortiisa yani saxaabigii sacab ibnu juthami geeriyooday qoortiisa halkaa ayuu buro madoob ka arkay marka wuxuu dhahay walaal buradaa madoobi waa maxay wuxuu dhahay buradaa madoobi waa dayn laygu lahaa buu yidhi dayntaasna nin yahuudiya oo aanu jiraan ahayn ayaa markaa igu lahaa buu yidhi 10 danaaniir ama 10 dinaar ah ayuu igu lahaa kolka habeenkii aan dhiman doono ayaan islahaa si oo lacagtii markaa waxaan dhigay buu yidhi meel buu u tilmaamay gurigiisa ku taalla uu yidhi halkaasaan dhigay dhagaxa hoostiisa ayaan dhigay lacagtana waxaan ugu talagalay yahuudigii jaarkayaga ahaa oo aan ugu talagalay inaan siiyo marka dayntaa aan ku geeriyooday awgeed ayaa halkaa madoobaysay buu yidhi subxaanallah sidoo kalena waa asbaabta keentay ama sababtayba inaan hal sano ka maqnaado deetana waxa weydiiyey cawf ibnu malik baa weydiiye wuxuu yidhi mana dareentaan annagu marka aanu nool nahay dadka nool xayiga ah ma dareentaan wuxuu dhahay ha waan dareennaa buu yidhi anigu weliba ehelkaygii warkiisa waana la soo gaadhsiiya aniga ehelkayga warkoodii waa laysoo gaadhsiiyaa buu yidhi weliba waxaad ku garanaysaa buu yidhi guriga waxaa jooga buu yidhi bisad baa joogtay ama curri baa joogay currigiina wuu geeriyooday ee qoyskayga u sheeg subxaanallah waxaa kaloo ku yidhi inantaydii yarayd oo 6 jir ah iyadana 6 casho ayaa u hadhsan ama 6 maalmood baa uga hadhsan adduunyada kadibna way nala kulmi doontaa subxaanallah ninkii cawf ibnu malik baa markaa radiyallahu canhu hurdadii ka soo kacay wuxuu qabtay gurigii markaa sacab ibnu juthama haweenaydii buu tegay haweenaydii baa canaanatay ma sidaasaa laysu galaya ma markuu walaalkaa dhintay baad subxaanallah aad naga tagtay
dabadeedna wuxuu dhahay may ogolaan kartaa aan halkan ka soo qaada markaa dhagaxa hoostiisa haddii ay lacag ku jirto wuu tegey mara duuduuban buu helay subxaan allah wuxuu ugu tegey markaa danaaniirtii 10 danaaniir lacagtii buu qaaday ninkii yahuudiga jiraanka ahaa buu ku garaacay wuxuu ku dhahay ninkii Sacb ibn Juthama lacag ma ku lahayn wuxuu yidhi haa markaasuu yidhi cid kaloo anigii annaga ahayn may ogeynasaad ku ogaatay markaasuu yidhi riyo igu yimi subxaan allah wuxuu yidhi war qaaday yahuudiyahow lacagtani deyntaasi walaalkayba bar madow xitaa ku dhigtayo sanad dhan qabriga markaa iyo xabaasha subxaan allah ay ku haysay calaa kulli xaal markuu ninkii uu siiyey Cawf ibn Malik baa wuxuu leeyahay wixii uu walaalkay riyada igu soo sheegay mid baan u tirinaya wuxuu yidhi haadihi waaxida taasi waa tii koowaad oo uu soo sheegay uu yidhi ninkaasaa deyn ugu lahaa deyntii waan ka bixiyey buu yidhi subxaan allah wuxuu dhahay gurigii baan ku soo noqday waxaan ku yidhi bisad iyo ama curri ma weydeen waxay dhaheen haa wuxuu ku yidhi guriga halkaasuu ku dhintay waa la tegey currigii oo baktiyey baa loo tegey subxaan allah inantii yareed oo xanuunsanayso xumad madaxeed ay xumad ay hayso ayuu markaa uu u tegey dabadeedna iyadina wuxuu ku yidhi isbir waxtasib iska samro oo insha allah ilaahay ka ajar dalba waa la yaabay 6 casho markii ay maraysay ayay inantiina geeriyootay subxaan allah bal u fiirsada markaa taasi walaalayaal waxay ahayd waa qiso cajiiba waxa ay soo saaray imaam ibn al-qayyim rahimahullah iyo kitaab ar-ruh la dhaho ee uu leeyahay kitaab aad u cajiiba ku soo aroorinayay waxa kaloo jira qiso kale cajiiba saxaabigii Thabit ibn Qais radiyallahu anhu saxaabigaasna wuxuu ka qayb galay dagaalkii fi macrakati al-Yamama Khalid ibn al-Walid baa markaa hogaaminayay Sayfullah al-Maslul waxa la dagaalamay beenaale ninkii la oran jiray markaa مسيلمة الكذاب بيناله مسيلمة اللي odhan jiray marka waxa dhacday dagaalkii markii uu ka qayb galay waa la dilay markii la dilay oo uu shahiiday marka Thabit ibn Qais oo nabiga buu ku sii bashaareeyo Thabit ibn Qais waa kii nabiga ku lahaa nolol fiican adduunyada nolol fiican baad ku noolaanaysaa geeri dhimasho fiican oo shahaado ahna waad ku geeriyoonaysaa kolkuu dhintay saxaabigii Thabit ibn Qais radiyallahu anhu ayaa saxaabi kale ayaa seexday ama hurdo waxoogaa ay qabatay deetana uu seexday intii dagaalka lagu guda jiray wuxuu arkay isla Thabit ibn Qais ayuu arkay subxaan allah markaasuu wuxuu ku yidhi waryaha hamoodin inaad waxani tahay ixtilaam yacni riyeyska kaa tustay waa anigiyo Thabit ibn Qais oo sidiisii ah buu yidhi markii la idilay dircigii aan sitay dircigu waa aaladii uu iskaga ilaalinayay warmaha fallaadhaha iyo markaa seefaha ee uu dusha ku sitay dircigaygii waa la xaday markii la dilay ayaa la xaday nin baa la orday buu marka meel burma ah meel taaga ah oo buur ah dusheeda buu geeyay dhagax weyn dushu ka saaray halkaas ay taala buu yiri ee soo qaad dircigayga waxaad u geysaa buu yiri Khalid ibn al-Walid Khalidna ha u sii geeyo khaliifkii muslimiinta ee Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr ha iibiyo dabadeedna dar ilaahay ha la igu bixiyo adoonka gurigayga joogaana wajiga ilaahay buu xoriyay subxaan allah ninkiiba hurdadii ka kacay Khalid buu sheegay Khalid wuxuu yidhi laa budda waynan fulinaa buu yidhi wasiyadii iyo dardaarankii Thabit ibn Qais radiyallahu anhu meeshii buu tegeen buurmadii meeshii buurtii yareed dusha buurmadii yareed ayay tegeen subxaan allah dabadeedna dhagaxii baa dusha laga qaaday waxaa laga helay dircigii Thabit ibn Qais radiyallahu anhu Abu Bakr baa loo geeyay Abu Bakr wuxuu yidhi laa bud waa inaanu fulinaa waa waajib baynu ku tahay inaanu fulino dardarankii Thabit ibn Qais radiyallahu anhu wa arda waana la fuliyay ninkii markaa adoonka ahana wajiga ilaahay ayuu u xoreeyay subxaan allah marka qisooyinka ku saabsiisan in ay kulmi karaan talaaqi arwaax ruux geeriyootay ay la kulmi karto qof geeriyooday aad iyo aad bay u tiro badan yihiin aad iyo aad ayay u tiro badan yihiin waxaan kaloo halkaa ka dareemaynaa in qofka mu'minka dhintay aanu baktiyana aanu baabi'ine uu tegayo meel ilaahay ugu talagaliyo caalam kale uu tegayo walidalik diinteena islaamku waxayna faraysaa in qofka mu'minka geeriyooday ee ehelkaaga ka mid ah in aad u hadiyeyn kartid khayr ba wanaagsan aad khayr iyo markaa sadaqa aad u hadiyeyn kartid oo amal wanaagsan markaa aad u qaban kartid sadaqa ha noqoto xaj aad ka soo gudday ha noqoto cimra aad ka soo gudday ha noqoto khayrka fara badan iyo sadaqada aad ka bixinaysa ha noqoto marka waad ka gudi kartaa khayr badanna waad u hersadi kartaa qof ehelkaaga ahaa oo geeriyooday hada wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi